Waddan kasta wuxuu leeyahay dhaqan gaar u ah, laakiin Soomaalida dhaqankan xun ay leeyihiin ay haddana meel kasta ay la tagayaan. Waa la iskaga daba imaaday kiiskan ka dhacay waddanka Kenya, gabar yar oo 10 jir ah oo lagu daray oday waayeel ah. Waxyaalaha oo la yaab kale oo Soomaalida annaga hadda aan naqaano oo caadi ah, laakiin ummadda kale hadday maqlaan la yaab ah in gabadha waalidkeeda uu raali ka noqdo ama uu asaga u guuriyo waalidka naftirkiisa uu ku daro gabadha nin waayeel ah oday ah. Maxaa la dhahay gabadhiisa uu siiyo asagoo ku faraxsan oo raalli ah. Lama dhahayo maxaa la dhahay dad gaar ah qasbaya ama dowladda qasbaysa, laakiin oo waalidka uu wadaba inuu asaga qasbo ilmihiisa. Laakiin arrintan adduunka waa ka mamnuuc. Gabar ka yar 18 sano, xitaa anaga dhaqan ahaan ama diin ahaan ilaa 15 sano ayaa la ogol yahay. 15 sano. Gabadha 15 sano markay jirto diinteena iyo dhaqankeena buu saamix karaa inay guursato. Laakiin wadamada kaleeto sharciga ka jira iyo systemkooda waxaa waa ilaa 18 sano. Soo marka qofka ku nool waddan kaleeto wuu ku qasban yahay in uu raaco systemka ka jira waddankaas ama dhaqankaas, in uu raaco oo u hoggaansamo nolosha meeshaas ka jirto. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa in waalidka arrintan ay caqabad ku noqoto oo laga dhigo waalidka dambiile wuubana yahay dambiile. Gabadhan maxaa la dhahayay odayga soo guursaday asagoo gurigiisa maxaa la dhahayay muddo dadka qaarkood waxay leeyihiin dhowr bilood qaarna 2 sano. Gabadhan guriga ku haysta ayaa cidaha deriska oo maxaa la dhahayay oo dabcan ajaanibta ah Kenyaatiga ah ay dacweeyeen waxay ku dacweeyeen nin u dooda xuquuqda dumarka iyo caruurta. Markay ninkaas ku dacweeyeen kadib ninkii markuu imaaday gurigii maxaa la dhahayay la galay gabadhii laga soo bixiyay la wareystay gabadhii maxaa la dhahay meeqa sano jirta Allah waxay dhahdeen waxaa jira 10 sano. Soo marka waxaa la dhahay ninkan yaa kugu daray waxay dhahdeen ninkan waxaa igu dartay maxaa la dhahay hooyaday ayaa igu dartay ninkan muxuu ku yahay la dhahay wuu i qabaayay dhahdeen. Arrintaas waxaa laga soo sheegay gabadhaas ninkaas waxyaalo uu ku sameyn jiray Allahu a'lam inay dadka u saarinayaan iyo inay warkaan uu xaqiiqo yahay. Laakiin xaqiiqda wax kasto xaqiiqo ah waxaa waa dib ayay ka soo baxayaan. Laakiin maadaama mowduuca first one uu hadda uu yahay waxyaalo oo aqli galeyn ku sameyn jiray gabadhaas waxaa la leeyahay afka dhan fashion galay. Soo waxyaalo uu adeegsan jiray oo afka ugu sameyn jiray Allahu a'lam. Gabadhan marka maxaa la dhahay ninkii wuu yaabay oo Kenyaatiga ahaa markuu wareystay ee warbixintaas ay siisay. Hadda waxaa la leeyahay waxaa la raadinayaa hooyadii oo dambigan geysatay gabadhan yar oo 10 jirka ah ku dartay nin 50 ilaa 60 lagu qiyaasaya ninka. Xitaa ma ahan qof 35 ilaa 40 ama 45 xitaa. Qiyaasta ninkan hadda oo la leeyahay maxaa la dhahay sharcigiisa dhalashada iyo maxaa la dhahay wuxuu afka sheegay waxaa la dhahay 2 dhalashay kala yihiin. Sidaas darteeda ninkan nin aad iyo aad gabadha ugu weyn waay. Laakiin hadda waxaa dambiile ah hooyada dhashay gabadhan oo ninkan u guursay. Dhaqankan waxaan jeclaan lahaa in badan waa laga doodaa social media in bataatan bala joojiyo gabar yar oo maxaa la dhahay 10 sano jirto odaygan bal fiiriyo xasbi Allah wa ni'mal wakiil. Hadduu qof asaageeda ahaan lahaa xitaa wiil yar oo 15 jir hadii lagu daray lahaa xitaa maybe ani waxay ila ahaan lahayd macquul. Wiil yar oo 15 jir iyo gabadh oo 10 jirto wax isku dhow waay. Laakiin oday waayeel ah bismillah hadduu hal mar kor ku seexdo gabadha naftaa ka baxaysaba. Kolay qaabka lagu adeegsanayay markii hadda la sheegay qof kasto maxaa la dhahay damiir ah waxaas ma sheegi karo. Markii intaas ka sii gudubno hooyada dhashay gabadhan hadda hooyo meesha lagu sheegay maxaa la dhahay ay tahay xariyaha qaxootiga ay degan tahay nafteeda dambi isku keentay. Hadda xabsiya la gelinayaa waxay maraysaa ciqaab gabadheeda maxaa la dhahay dambi ay ka gashay. Marka Soomaaliyay waxaa idinkaga digayaa waddan haddii aad tagtaan waa inaa sharcigiisa iyo systemkiisa aad raacdaan. Ilmihiinana inaa haligtaan sax ma ahan sababtoo ah gabadhan hadda aad iyo aad u yar tahay. Ma u qalanta ninka noocan ah in uu guursado abadan uma qalanta gabadhan. Haddii diiniya laga fiiriyana annaga xilligii saxaabaha ma joogno qarni adduun isbedelayaan joognaa. haddii xilligii saxaabaha gabar 9 jir ama 10 jir la guursan jiray
xilligan diinteena isma bedelin laakiin zamankii ayaa isbedelay sidaas darteeda 15 sano xitaa way yartaha la dhihi karaa laakiin maadaama diinteena ayna fartay sorry ereygaas meesha waa qalday diinteena ayna fartay ilaa iyo 15 sano gabadha maxaa la dhahaa in lagu guursan karo diinteena raaca calal aqal haddii berri dhibaato idinku imaato waa ku dacwoon kartiin in anaga dhaqankeena iyo diinteena ay saan tahay ayagana dhaqankooda iyo diintooda maxaa la dhahay 18 sano laakiin oday waayeel bataatanba gabar yar yaana loo guurinin sidaas sax ma ahan Soomaaliya ka jooga dad foojigan oo caalamka la socon kara oo meesha u taga waxa ka jira maxaa la dhahay systemka ka jira la socon kara waa inaan noqotaan gabadhan yarta ah lugooyada iyo mustaqbal xumada lagu dhigay ilaahay hadda ka soo gaaray aadaan ugu xumahay videogan share gareeya qisooyin badan aan idin la wadaagaya meel dheer gaarsiiya YouTube kana subscribe ka inoo saara